kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal halkani waa xarunteeda Home Cable TV ee wadanka Sweden waxa aan khadka telefoonka ama Zoomka noogu jira gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo isagu maanta ku sugan wadanka Finland gudoomiyaha waxa aanu ka wareysanaynaa hadal uu jeediyay dhawaan oo aragtiyo kala duwan laga bixiyay hadalkaas oo gudoomiyuhu uu jeclaystay ama aanu jeclaysanay inaan wax ka weydiino gudoomiye ugu horreyn waa ku soo dhaweynayna aad baad u mahadsantahay Home Cable iyo barkadba way gudoomiye su'aasha koobaad aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan xisbigiina wadani adigu aad gudoomiyaha ka tahay kolley waxa la hadal hayay dhawaanahan ba inuu shir qabsanayo marka shirka xisbigu goormu dhacaya barkadow shirweyne xisbigu wuxuu dhacayaa 6 bilood gudahood marka laga bilaabo 1 Oktoobar ilaa 30 Abriil inta u dhaxaysa hogaankana cayimi doona maalinta uu qabsoomayo shirku waayahay haddii aan si toosa ku weydiiyo su'aasha labaad hadal aad dhawaan jeedisay dad badan oo dhageystay ayaa ka kala bixiyay aragtiyo kala duwan marka hoggaanka xisbiga wadani qaab nuucee buu dhisan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim hoggaanka xisbiga sidoo u dhisan yahay horta waxa tilmaamaya xeerka xisbiga hoggaanka xisbigu waxa jira 2 xil ama 3 xil oo kaga duwan yahay hoggaanada labada xisbiye kale mid waxa weeye aniga iyo madaxweyne ku xigeenku mar walba waxaanu ka midnahay hoggaanka xisbiga talabaadna waxa weeye structure-ka waxa qeexaya xeerka xisbiga waxa ugu hoggaanka madax ka ah gudoomiyaha xisbiga waxa jira xilaan labada xisbi kale ku jirin oo ah gudoomiyaha ku meel gaadhka oo xisbiga wadani leeyahay gudoomiyaha ku meel gaadhka ayaa ku xiga gudoomiyaha xisbiga oo ah xildhibaan Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde xilka labaad ee labada xisbi aanay lahayn waxa kamid ah isna hogaamiyaha xisbiga oo ku xigaya gudoomiyaha ku meel gaadhka dabeedna waxa ku xigaya 5 gudoomiye ku xigeen oo xisbigu leeyahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ilaa gudoomiye ku xigeenka shanaad gudoomiye ku xigeenka koowaad waa Cabdirasaaq Khaliif gudoomiye ku xigeenka labaadna waa Saleebaan Ducaale gudoomiye saddexaad waa Kayse Cali Geedi Dr. Kayse Cali Geedi gudoomiye ku xigeenka afraad waa Cabdi Reegal Beegsi gudoomiye xigeenka shanaadna waa Milgo Maxamed Sambaloshe xubno kale oo hoggaanka ku jira way kamid yihiin Dr. Alabari iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Good ayaa iyaguna kamid iyo xubno kale oo fara badan baa iyaguna hoggaanka kamid ah waayahay gudoomiye shirkan aad doonaysaan in qabataan gudoomiyaashan iyo waxyaabahan faraha badan aad sheegtay ma ku wada ansixinaysaan kulligood oo ma soo gabagabaynaysaan arrintaas xisbiga kulliba shirar weynuhu markay dhacayaan wixii talooyin soo kordhana waa lagu kordhiyaa xeerka laga bedelayo waxaan tahay structure-ka cusub ee loo sameeyo xisbiga waayahay gudoomiye haddii tartanka aad soo hadal qaaday adigu ma isu sharaxaysaa mar labaad ee gudoomiyaha xisbiga xeerku xisbiga iyo xeerka ururaduba waxay ogol yihiin in 2 jeer u tartamo laakiin inaan u tartamo iyo inaan u tartamin xisbigan ka dhex sheegi doona haddii ilaahay ka dhigo waayahay ma lagu tartami doonaa hoggaanka xisbiga asalkiisa banaanba xeerku wuxuu ogol yahay in lagu tartamo hoggaanka xisbiga marka xeerka la soo gunaado inta uu noqonayo hoggaanka xisbigu waa lagu tartami doonaa
insha allahu waayahay guddoomiye inagoo runtii dee jeclayno waraysigan inuu koobnaado maadaama khad aynu isku waraysanayno hal su'aal oo yar oo ka baxsan mawduuceena haddaan ku weydiiyo commissionka iminka aad isla ogolaateen idinkii dowladdu waxay samaynayaan guddoomiyaashii gobollada guddoomiyaashii degmada marka idinku role intee leg baad ku leedihiin guddoomiyaasha noocaas oo kale degmooyinka iyo gobollada ma waxaad se u kala qaybsataan sidii aad commissionka guudba u kala qaybsateen oo xusbi walba dad buu keenaya mise commissionku baa arrintan magacaabaya shaqaalaha la qorayo commissionka dee xeerku wuxuu siinaya inay qoraan guddiga doorashooyinka qaranka laakiin axsaabta waa laga qayb geliyaa xubnaha la qorayo degmooyinka iyo gobollada marka xisbi walba 2 xubnood baa ugu jira commissionka uga qaaligala oo la yiraahdo task force oo ma wakiilada xisbiga ee commissionka marka 2 xubnood baa goobjoog ka noqonaya qof kasta oo la qorayo degmo ama gobol talana way ku leeyihiin waana ka bixin karaa ra'yigooda hadday diidan yihiin iyo hadday ogol yihiinba waayahay daawadayaal intaa waxaynu kusoo koobaynaa waraysi runtii yaro kooban oo nagu talagalnay guddoomiyaha inaanu ka qaadno oonu ku weydiino hadal uu dhowaan jeediyey oo runtii su'aalo badan layska weydiiyey guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi coro guddoomiyaha xisbiga wadani aad iyo aad ba u mahadsantahay aad baad mahadsantahay barkad thank you waayahay daawadayaal intaa waxaynu ugu dhammaaday waraysiga aanu la yeelanay guddoomiyaha waraysigana waxaa la yeeshay guddoomiyaha anigoo ah barkad cabdilaahi maxamed oo ku sugan xaruntayada ama stuudiyahayaga home cable tv ee waddanka Sweden intaanu dib u kulmayna dhammaantiin waxaad leenahay nabadgelyo